wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa xogta suuqa media oo aad kala socotaan baraha bulshada aynu ku leenahay internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada. Dhageystayaal iyo daawadayaal, xogta suuqa media waa warbaahin toddobaadle ah oo idin soo gudbin doonta inta badan xaaladaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee dalkeena hooyo, kuwaasoo isugu jira siyaasad, maaweelo dhaqan, caafimaad, waxbarasho iyo ganacsi, taasoo ujeedka guud uu yahay kobcinta fikirka, wadaniyada, dhaqanka iyo isku xirka garaadka guud ee ummadda Soomaaliyeed. markii lagu dhawaaqay madaxbannaanida qaranka Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1960 ilaa iyo xilligan aynu joogno, madaxda kala duwan ee soo martay dalka ma aysan fahmin qorshaha dawladaha taageera Soomaaliya nooc kasta oo ay tahay, sababtoo ah dhammaan taageeradaasi ma ahayn kuwa madaxbannaanida qaranka Soomaaliyeed awood siinayay. sidoo kale ma fahmin qorshaha siyaasadeed, tan colaadeed iyo tan awoodeed ee ay ku dhex leeyihiin dawladaha deriska iyo kuwii hore usoo gumaysan jiray dalka Soomaaliya. dawladaha deriska si toos ah bay ciidan ahaan iyo shacab ahaan u dhex degan yihiin gudaha Soomaaliya, mana jiro qorshe lagu ciribtirayo. taasina waa caqabada ugu weyn ee haysata qaranka Soomaaliyeed xilligan. waxaa kale oo jira madaxdii qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabkuba isma weydiin sababta dawladii Ingiriiska oo qaybo badan dhulka Soomaaliyeed haysan jirtay ay si bareer ah u guddoonsiisay dawladaha Itoobiya iyo Kenya sida Zoonka Shanaad iyo NFD. waxaa kaloo jira isku dayo iyo dadaalo diblomaasiyadeed in muddo ah lagu doonayay in dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya lagu mideeyo, isla markaana looga dhigayo hal dawlad oo federaal ah. isku dayii ugu horeeyay federaaleynta labadan wadan waxaa lagu waayay saaxiibtinimada Ruushka iyo awoodii ciidamadii Soomaaliyeed ee caarka Afrika ahaa oo uu dabarjabin ku sameeyay Ruushka isagoo adeegsanaya dawladihii ku jiray ururkii Gaashaanbuurta Warsaw. kadib markii ay isku dhaceen hogaankii dawladii Soomaaliyeed ee xilligaas, taasoo ugu dambeyn keentay in ay meesha ka baxdo dawladii kacaanka, isla markaana lagu guuleysan la'yahan dhismaha qaran Soomaaliyeed xilligan aynu joogno. sidoo kale waxaa jira barakicin iyo ciribtir qowmiyadeed oo lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool Zoonka Shanaad. hadalhayn fara badan oo isa soo taraya ayaa sheegaya in xuduudihii Zoonka Shanaad uu la lahaa qowmiyadaha kale sanadba sanadka ka dambeeya kusoo durkayaan dhulka Soomaaliyeed, isla markaana aysan weli fahmin guud ahaan maamulka meesha ka jira iyo shacabka. waxaana sii murjiyay maamul xumada meesha ka jirta iyo fahan la'aan mas'uuliyadeed oo baahsan, isuguna jira kuwa siyaasadeed, aqoon-yahanka, culimada iyo guud ahaan oday dhaqameedyada. markii dawladii federaalka kumeelgaarka Soomaaliya 2004 ee lagu soo dhisay dalka Kenya uu hogaaminayay Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayna u soo guurtay gudaha dalka, ayaa maalinta ka dambaysa dalka Soomaaliya waxa uu lugaha la sii galayay isbedelo waaweyn oo lahaa duufaano colaadeed, kuwa siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa saameyn guud oo dhinacyo kala duwan leh. isbedeladaasi waxaa ka mid ah imaanshiyaha ciidamo ka socda dawladaha deriska, kuwa kale ee caalamka. waxaa soo shacbaxay warcadbadeedyo kala ujeeda ah, waxaa abuurmay urur diimeedyo magacyo kala duwan lahaa, dhismaha 4 maamul goboleed cusub iyo 3 goor oo xilka madaxweynaha nidaamka doorashada dadban xilka u kala wareegay. hase ahaatee waxaan weli si waafi ah loogu guuleysan adkeynta amniga, dhismaha ciidamo midaysan oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay iyo dhamaystirka dastuurkii kumeelgaarka ahaa. waxaa taagan qonofyo siyaasadeed, kuwa maamul, kuwa amni, kuwa dhaqaale iyo kuwa caafimaad. haddaba si aynu u qiimeyno
isbedeladaas hore u jiray islamarkaana looga gudbo kuwa hadda taagan loogana gaashaanto kuwa soo socda ayaa waxaan doonayaa in aan dib idin xasuusiyo qaar ka mid ah kuwii hore inta aynan u gudbin kuwa hadda taagan aan idin xasuusiyo waraysiyo xasaasi ah oo aan la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda federaalka kumeel gaarka ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda professor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi admiral faarax cumar faarax qare oo ahaa taliyihii ciidamada badda xilligaasi islamarkaana xilliyo kala duwan soo ahaan jiray taliyihii ciidamada badda oo aan waraysi la yeeshay iyo cumar shariif jeeg oo ahaa madaxii injineerada shirkadii shifco ee maraakiibta soomaaliyeed ee uu maamulo injineer munye qaabka ay u dhaceen waa hagaag intaas aynu ku dhaafno codka hobolada qaranka Soomaaliyeed tilmaamahoodii aynu ku bilaawno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo gashay inaan la kulno admiral faarax axmed cumar oo ah taliyaha ciidamada badda ee dowladda Soomaaliya oo aan kula kulmay hotel Sheraton 26 bishii 2009 markaana aan ku yimid xilliga uu ku soo biiray ciidamada badda ee Soomaaliya isagoo arrimaha iska leeyahay ciidamada badda horta ay kamid yihiin ciidamada qalabka sida dowladdan markay isticmaalka qaadatay 1960 soo yimideen qaybteedii waqooyi iyo qaybteedii koonfureed dowladda aysan ay dhisteen ayaa waxa la sameeyay ciidamada qalabka sida walow horay yani fikradu ay u jirtay abaabulku ciidamada dhulka la sameeyay arka la sameeyay badda la sameeyay baddu waxay shaqo bilowday 10kii February 1965 maalintaas oo maalintii 6 markaba ugu horeysay midowga Sovieti aan ka helno ay barbara ka soo degeen hase yeeshee heshiiska ra'iisul wasaarihii bariga Hajar Cabdisiir Cali Samarke iyo janankii bariga Hajar Daawud Cabdul Cusmaan ayaa 60kii labadii Ruuska ku heshiiyey inuu dalka Soomaaliyeed qalabeeyo maraakiibtaas saasay laba sano kadib ama hal sano iska dheer yaan anigu ku soo biiray ciidamada oo noqday xilligii amba sarkaal arday sarkaal Ruusiyan aaday Ruusiyan 3 sano wax ku barahayo magaalada Baku ee caasimada Azerbaijan hadda وبرياس ما يوصل كمان لأن في سداد يعني صار لعبتي عليه وحنا قضي يونس يرقد دفاع حلا سلاف أيام هوشة كوك على كوري معلم أو مالبا واللي بيبقى يقرب وسيادي سي تعليم تنوع كردي سي فقال في طواتين طواتين على صار لعبتي عراقان علي أكاديمية بندول كأيه جامين تأيام فوق حتى بس ربح من الترسين فوق حتى مركان كسر لعبتي سداد كنا بندول إذا ما بدنا عليه سداد في الله مدينة تليها إذا ما ربط أيام عليه وأمان مالك كهرسي كل دوات صدر صار كهر أيام تليها إذا ما بدأها أنت في آدم بدنا دوات سداد كي اللي مصرنا عليه وحان قالي أكاديمية ناصر الصناعة والاستراتيجية نبدأ قرن كلا جبرتو هل كاسان كسوق قلنا تكشي سداد كي سدادي طبعي سداد كي سداد كسوق قلنا تكشي تاسو لي أنت PhD شبه قاطع مدينة قاطع وبعدين وحن كمان نقضي استراتيجي الأكاديمية الاستراتيجية خمس أساسي وضي كبر جسدتك بلا أنت دولة دعبي أو لا عشان كجر بدي أنا لف كانوا شرينا أنا طبعا علمي بقالة وبرت PhD إيكونومي الله يعني سجارة وبرت جامعة فري جامعة داس طبعا سنة كبر لي هذا ما عند الشغل هيسا وقت له أيام مركز اللي يري يعني إذا من بدي خليه كان نقضه وما أنت مدعنا وحي كل واحد كنا ما قال maalintan taliyaha ka ahay kadib ina 7 sano ku dhawaad kale ayaan hadda maanta mar kale taliya la iga dhigay iyadoo ciidan bawsan jirin hub jirin dadka la yaqaan jirin amba wax duqoobe wax dhinteen anna si kala dalka ka tageen problem cusubna nagu soo biiro leeyahay barcadbade marka arrimo cusub oo iska jira wada dhibaata ayaan maanta ku soo ayaan taaganahay sidaan bal wax xal lahayn waxaan filayaa journalistaan naftiisa looma dhama arinta halkaas ay maraysa inta la wax sheegtay arrimo fara badan ayaa ka faahfaahsan ciidamada badda tirada markaas inay ahaayeen imisa goobadna ay ka howlgeli jireen waxana waa maraakiibta noogu horeysay midowga Sovieti ciidamada dhulka
ciidamada cirka ciidamada badda waa asaga aanoo dhisayo na siiyey ciidamada badda markii ugu dambaysa dawladda dhacaysa waxay lahaayeen 4 bays berbero ahay waqooyi buu kusii jeeday bays boosaas u ahaa bari buu kusii jeeday xamar center ay ku jeeday kismaayo koonfurtay ku jeeday 4taas saldhig oo badeed ayaan lahayn saldhig kastana maraakib kala duwan oo kala nooc ayuu lahaa isku darkoodu 30 koray u dhaafayeen badoo dhan waxaa ku teedsanay maaragtay wax la yiraahdo observation board baraha ilaalada laga soo bilaabo Zeyla ilaa Raaskamboon 50 kilomitir ba hal barbaa ku tiilo badda ilaalinaysa sidaas ay bar kastana qalabka ilaalinta kuwa hawada kuwa yani fasaasayaasha dadooda magaca rabto kuma waxa la arkay yeelamada dhulkana waxaan ku leeyahay ilaa 8 urur oo mariinis ah oo kumaandoodka badda ah iyo 7 dugsi oo kala nooc ah يعني waxaan ciidan rugta xoog badan maraakibta dankaaga waran kuwa madaasha ay wadeen kuwa turbeed ay wadeen kuwa sawaariikh ay wadeen kuwa ciidamada yalla saaray dejiya yani nooc badan ciidan runtii geeska Afrika ama Afrika oo dhanba uu ka cabsataan ama la qiimeeyo sidaas awad barigaas qorbalaan samaanta jira ma jiro nin badda wax ku duwi karo wasakha ma jiro nin kaluun xadi kara ma jiro warcabadada hawlisamahay dhammaan maanta marka dawladda dhacdo ciidanka meesha ka baxay balaayo dhamaan haweysatay waa mid maanta nahay dhammaan waxa xustay baysadka ay lahaayeen saldhigyada ciidamada qalabka sida ama badda ay lahayn jireen marka laga soo tago xiliyadaasi maxaa laga ilaalin jiray badeena Soomaaliya ugu weyn bad sideedaba horta hal walaal laga ilaalin sideedaba badda waxa la rabaa biyahaas badda oo Soomaalida weyna ka badan inay u hoggaansan yihiin qawaaniinta dalka iyo qaanuunka dawliga ayaa laga rabaa yani wax dambi inuusan ka dhicin ayaa laga rabaa xilka ciidanka badda waa qaaway qurcadbadeed waa dambi kaluum la xado waa dambi marka aan loo siinay mataqan aan la siin maaragtay inuu soo maro waa dambi mid wax ku shubay waa dambi mid mataqan batroolka qodida loo leeyahay waa dambi waxa soo dambi in laga ilaaliyo badda ama nooc kasta xadgudub in laga ilaaliyo ayaa waajibka ciidanka badda u taagan sidaas ay inta waxa la jira badda xageeda in dalka looga soo diiyo badda nabadgelyo waxa kamid ah dadka badda Soomaalida ama dadka aanu aan siinay shatiga sharciga badda ka kaluumaysta inaan ciidana dhibin oo si xor ah ay badda asoo kaluumaystaan ayaa kamid ah macnaha hadii la soo urushay inta waxay noqonaysaa baddu inay sharci u hoggaansan tahay ujeedadu waa taas ay dawladda hoos timaado taasana ah waajibka ciidanka shirkadii ka kaluumaysan jiray xilligaas maxaad inoo xasi kartaa qaab sidee ayaana sharci ahaan loo siin jiray inay uga kaluumaystaan intaas aynu ku dhaafno codka hawlada qaranka Soomaaliyeed tilmaamahoodii iyo waraysigii ka horeeyay aynu u gudubno markana Umar Shariif Jeeg oo kamid ah saraakiishii shirkadda kalluumaysiga ee Shifo ee Soomaaliya muddo 15 sano ayay 6 markab injineer Miye oo maamulayay sarkaalkii khaasatan gacanta ku hayay maraakiibtaasi oo aan kula kulmay hotel saxafi ee magaalada Muqdisho waxaan ka weydiinay burcadbadeeda ka jira Soomaaliya xilliga ay soo aasaasmeen iyo dadkii aasaasay iyo qaabka ay u aasaasmeen ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim oo arimahan ma aha arimo oo hadbartaan ay ku soo kordheen dalka burcadbadeedka hadbartaan ka jira dalka waxay aasaasmeen 1993 waxayna aasaaskooda koowaad ay ka bilaabatay North East Coast gaar oo dhinaca xeebaha waqooyi bari meeshaas ay ka soo asaasmatay
aniga hadda cumar ahaan xataa waxaan ilaa iyo muddo aan markaas ku dhex jiray ama aan la shaqeynay nimankaas oo eredaas degan oo niman macruuf oo laga yaqaano ah oo dooman waaweyn oo doomankan bakistaanka la yiraahdo iska lahaayeen oo niman hadda dalkeena qaarkood wax ka ah qaarna haddeertaanba oo dibadaha ku nool oo systemkan hadda macnaha lagu dhaqmayo dhinacan haddeertaan ilaa eriyo garacad ilaa iyo zoonahan la yiraahdo garacad ilaa iyo hobyo waa wax haddeertaan keliya oo kusoo cusboonaada laakiin waxaan horey usoo jiri jirin annaga ka mid ahayn markabkii ugu horeeyey ee badda soomaaliya lagu qabsado faarax Omar laba markab oo Cusmaan Geediraage iyo la yiraahdo Bintuna Brimo oo aan markaasna aniga aan dul saarnaa ayaa ka mid maraakiibta la qabsaday kadib ayaan annaga waxaan xawilnay asaaskan dhibaatooyinkan meeshii ay ka imaadeen iyo habka isku abaabulaan iyo habka oo dhaqaalaha meesha uu ka soo galay nimankan burcadbadeedka sida aan daraasad ugu sameyno ayaa aniga waxaa looga soo dhigay wakiilkii gaarka shirkadda shiifko magaalada Boosaaso inaan u fariisto oo aan markaas daraasad ku sameeyo habka ku shaqeeyaan iyo habka ay markaasi ay ku howlgalaan anigoo markaas ayagoo markaas ahaayeen dad kala firlisan haddii aan ka dhex galo sababta aad u aasaasteen oo burcadbadeed meel isugu keenteen ma ujeedin waxay ahayd adinku ay nabadgeliyaan maraakiibta kale ee maraykan xeebaha Soomaaliya waxay doonaan ay ku sameeyaan wallahi annaga muhiimadeena waxay ahayd maadaama Soomaaliya gobolkiisa uu aad iyo aad u badan yahay oo aan jirin markaasi yaran aan muddo hal sanadood aan ku jirnay aad iyo aad aan ugu baabaanay maraakiibta oo wax soo saarkii iyo xukuumadda Yemen oo adii sharciyadeeda adag yahay awgiisi shirkadda shiifkan markaas khasaare xoog la ay gashay ayaan markaasi nimankan maadaama aniga loo soo diray oo aan muddo ilaa 6 bilood la noolaa oo aan nidaamkooda iyo waxooga ku laanay ku indhindhay oo duruuftu waxay ugu kalaftay intaan cid kasta gooni u heshiin lahayn annaga danteena markaas ka fikirayna maaha dan guud aan u fiirinayno ayaa danta waxayna u kalaftay nimankii burcadbadeedka ahaa inaan maamul u sameyno oo aan xal ka dhigno ayagoo markaas qaab inay u shaqaystaan waa system iska tuugo laakiin annaga danteena waxaan ka fikirayna macnaha inta kooxda ay ka koobnaan markaas kooxahan burcadbadeedka wallahi markaas raggii aasaasay horta waxay ahaayeen ilaa iyo 6 badan xataa waxaa jiro qisooyin badan oo haddaan macnaha kugu soo koobi karin oo badan oo aan maanta maskaxda ku hayo oo ay ka mid yihiin xataa markab inta ka hor Chinese in la afduubtay la weydiiyey madax furasho ilaa iyo $300,000 oo markabkaasi nimankii haysteen nin wakiila Dubai inay u dirsadeen oo heshiiskii markuu dhacay akoon bangiga lacagta lagu shubay markabka la soo daayay sida markaa haddana lacagta la xanaday oo ninka la qabtay la xiray marka waxaa waaye waxyaalo badan ayaa jira marka waxaan haddeertaan la buunbuuninayo beesha caalamka iyo burcadbadeeda badda Soomaaliya kusoo tagtay burcadbadeedaasaa noqday waxaan arkaa wax oo asaaskeeda oo ka imaada dhinacaas bari aqoon badan uma aysan lahayn marka waxaan ku xasuustaa markaan imaano zona Baargaal ilaa iyo eel ilaa Xaafuun ayaa khatarta aad u badnaan jirtay laakiin marka aan imaano Haradheere iyo zonahan Garacad ilaa iyo Hobyo laba nagu soo gamo kor dhulka maaha wax dooman oo markaasi burcadbadeed ah meesha ku noolaay ma aysan jirin aqoon ma aysan lahaynba marka la qabsanayo marka lagu dhagaayo laakiin abaabulkana wuxuu ka imaaday asaaskiisa waa Garacad burcadbadeed awood ku yeelatay xeebaha Soomaaliya khaasatan inta u dhaxaysa Garacad ilaa iyo Hobyo inta u dhaxaysa kuwa ugu dambeeyay Haradheere lagu qabsanayo iyo marka yaa maal geliya maxay yihiin sababta hadda soo kicisay daawadayaal iyo dhegeystayaal sidaad u dhantihiin intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigoo ah Maxamed Macalin Ismaan Oolman oo barnaamijka idin soo diyaariyay isla markaana idin la socodsiinayay waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo halkani waa